munaasabadan ballaaran ee ka dhacday waqooyiga magaalada London ayaa lagu maamuusayay waxqabadkii sanadkii la soo dhaafay ee Shire Foundation ama rugta Shire isla markaana waxay ahayd daahfur xarun cusub oo ay Shire Foundation ka fureen isla waqooyiga London xaafadda Tottenham. rugtan Shire waxa ay ku soo biirtay boqolaalka Somali community-yada ka jira magaalada London sanad ka hor waxaana ay munaasabadani ku soo bandhigeen waxqabadkoodii sanadkii la soo dhaafay marti sharaftii halkaasi ka hadashay oo ay haayeen dad magac weyn ku leh dalka UK oo ay isugu jireen Soomaali iyo ajaanib. waxaa sidoo kale halkaasi joogeen in ka badan 10 ka mid ah garyaqaanada Wilson iyo LLP halkaas uu goobtaasina uu kaga hadlay khaaliga ama xaakimka milkiilaha ka ah garyaqaanadaasi Mr. Michael Hanley. It's been a privilege to work for the Somali community on Somali legal issues over the last nearly 20 years. We were born as a firm just before the Somali Civil War broke out. sidoo kale waxaa isna goobtaasi ka hadlay oo lagu casuumay madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan CRD mudane Jibriil Ibrahim Cabdulle oo socdaal ku joogay magaalada London isagoo isna ku dheeraaday waxqabadka iyo horumarka ay sameeyeen qurba joogta Soomaalida. generationada diaspora ama qurba joogta dadka ugu horeeyay ama generationka ugu horeeyay ee ku xiga isbedel weyn ku yimaado isbedelkana waxa sabab u ah arinta waxbarashada. haddii community-gan ka dhalana Soomaalida anahay aanan waqti gelin waxbarashada waxay ahaanaysaa sanadaha soo socda iyo jiritaankeena qoomiyada dhibaatada ku imaanayso. marka waxa la muhuraan ah in waqti badan la geliyo dadku inay wax bartaan ha noqoto arinta waxbarashada jaamacadaha oo hadda ay dadku ku badan yihiin ha noqdaan college-ka high school-ka haddaanan base ama sabab looga dhigin jiritaanka shacabka Soomaaliyeed ayaa ciriiri ku jiro ama dadka Soomaaliyeed guud ahaantiisa qolo kasta meesha ay degantaa waxay sharafteeda karaamadeeda ku timaadaa caruurtooda sida u barteen. marka inta baan dhiilahaa Shire Foundation waxaan dhahay mataqaanaa congratulations shaqo fiican qabatay aad u mahadsantiin. ardada wax ka dhigata Shire Foundation ayaa waxay sidoo kale halkaasi ku soo bandhigeen riwaayad ay iyagu alifeen oo magaceeda la yiraahdo One Family Two Worlds hal qoys oo laba adduun ku kala nool. riwaayadan oo aad ay u xiiso gelisay dadweynihii barnaamijkan ka soo qayb galay waxaa sidoo kale qof yar iyo mid weynba uu aad ula dhacay kooxda da'da yar ee durbaanleyda oo halkaasi ay ku soo bandhigeen durbaan garaacis aad u xiiso badan. mar haddii carruur la tababarayo oo hidihii iyo dhaqankii iyo macnaha noloshii ayahoodii taariikhdoodii la barayo waxa weeye waa wax loo baahan yahay waana wax muhiim ah sideedaba. marka waxaan soo aragnay ama annaga lafteena markaan halka imaanay anagoo dad yar ah baan nimid ma fahanti. Shire Foundation oo 16 bilood ka hor la aasaasay ayaa waxa ay ka mid tahay Somali community-da ka jira magaalada London isla markaana maanta waxa halkan ay ku soo bandhigeen sida darkeyseen waxqabadka Somali community-da iyo waliba heerka ay dadka Soomaalida ku nool qurbaha ay ugu soo bandhigaan. Raahan Umar Baafe wararka Universal London.